waa 25 Janaayo sanadka 2026 qodobada barnaamijkan idinku soo gudbinayo waxa ka mid noqon doona Faransiiska oo ka hadlay weerarka la doonayo in lagu qaado Iran iyo waxa ka dhalan kara waxa soo kale aan idin hayaa Masar oo ugu baaqday Israa'iil inay ka baxdo Gaza si loogu diyaar garoobo wajiga labaad ee wada hadallada waxa soo kale barnaamijka aanu idinku soo gudbin doona weerar cusub oo Israa'iil ay ka geysatay Gaza dhaawacyo iyo dhimasho la soo sheegayo qaybta ugu dambeysana waxaan idin hayaa booliiska Istanbul oo wareersan maanta kadib markii la helay naag madaxu ka go'an yahay lugahana ka go'an oo lagu tuuray meel qashinka ah iyadoo booliiska arinka ay markaasi u soo xireen dad airportka ka dhoofi lahaa tolow tafaasiisha sheekadan iyo waxa ka soo kordhay oo ay warbaahintu ka hadlayso iyana waan idin la wadaagi doonaa qodobadaas aynu barnaamij joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa Axad waxaynu ku bilaabaynaa arinta Gaza haddaba maanta oo Axad ah ayaa la sheegay in Israa'iil mar kale weeraro cirka iyo dhulka ah ay ka geysatay xaafado ka tirsan marinka Gaza haddaba hay'adaha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegaya in weeraradaas ay khasaare geysteen dhimasho iyo dhaawac haddaba wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera ayaa waxay leedahay hal qof ayaa dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen sida la sheegay weeraro lagu qaaday deegaanka la yiraahdo Xayu Tufaax iyadoo ciidamada la sheegay Israa'iil inay markaa halkaasi ku qarxiyeen afar geesood dadku ay deganaayeen oo ku yaala deegaanka la yiraahdo Khan Yunis haddaba warbixinada way sii socdeen waxaa la sheegayaa ruux Falastiiniya ayaa dhintay mid kalena dad kalena waa ay ku dhaawacmeen sida la sheegay subaxnimada Axadda ah kadib markii ciidamada Israa'iil ay weeraro ku qaadeen magaalada Gaza bartamaha magaaladaas waxaana la sheegay in weerarkaasi loo isticmaalay diyaaradaha dagaalka iyo madaafiic dhulka laga ganayay labadaba isbitaalka la yiraahdo Macmadani ka tirsan isbitaalada ku yaala Gaza ayaa isaga la sheegay in la geeyay dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay deegaanka Xayu Tufaax waxa uu ku yaala dhinaca waqooyi bari ee magaalada Gaza waxaana la sheegay inuu ka mid yahay goobihii dagaalada bacnaa ay dadka deegaankaasi la galeen ciidanka Israa'iil marka Israa'iil waxa leeyahay weeraradan waxay ku soo beegmayaan xilli Witkoff iyo Kushner oo ah wiilka uu sodogo u yahay Trump iyo ninka ergeyga Mareykanka ah ay markaasi leeyihiin heshiisa la gaarnay Netanyahu in maartay wareegga labaad loo gudbayo isaguna uu naga ogolaaday macbar Rafax in la furayo waadii sheegay marka wax balla oo ay galaan male hawshaas way socotaa tanna dadkii deegaankaas nagtay ka saarayaan haddaba xaalku halkaas uu marayaa Gaza wararkii ugu dambeeyay maanta haddaba dawladda Masar ayaa war soo saartay waxay leedahay nimankan oo ku jira meesha wareeg labaad ma la aadi kareen waa inay Gaza ka baxaan sida heshiisku yahay Gaza ka soo baxa kadib wajiga labaad in la aado hawshii la qabtaa rabaa laakiin waa ku jiraya meesha wajiga labaadna waa la aadaya war ah mar rabna dheer Masaarida waxay leedahay taas waa been la isu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa aflabadii qayliyay wuxuu yiri nimankan ha ka baxeen Gaza wajiga labaad sidaas lagu gudbo laakiin wajiga labaad oo sheeko ah ma yeelayna dheheen dadkan masaakiinta in la laayo haddaba sheekadu marka halkaas ayay maraysaa haddaba marka wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay waxay sheegayaan Masar waxay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in markaasi ay ka baxdo Israa'iil marinka Gaza si markaa loo furo macbarka Rafax hawshuna u socoto wajiga labaadna loo gudbo haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ninka la yiraahdo Badr Abdul Aati ayaa waxaa la sheegay mar uu kulan la qaadanayay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ay ka wada hadleen arintan kulankaasi oo ka dhacay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masaarida marka qodobka isaguna halkaas ayaynu kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijkeena labaad maanta aanu ku soo qaadanayno Axada wuxuu yahay Faransiiska ayaa war soo saaray Faransiiska wuxuu leeyahay yaan lagu degdegin Iran weerarkeeda
maraykanow iska jir halkaas waa halkaa ku jabi lahayd joog annagu waxay yidhaahdeen si kalaan dadka reer iiraan u caawinaynaa cunaqabateen la saaro maamulka waxaa ka shaqaynaynaa laakiin dagaal meeshaa lagu qaado annagu waa kasoo horjeednaayna waxaana ku talinaynaa in halkaa aan la isku weerarin faransiis gacan u taagin wuxuu yidhi meeshaa waxaa ku jira oo la sheegayo wax sahlan maa barnaamijkaygii koobaad saakay ayaynu kusoo qaadanay sheeko la yaab leh oo arrinkaa ku saabsan in jiinuhu 56 saacadood gudahood 16 diyaaradood oo xamuula uu ka dejiyo huba taasoo maraykanka israa'iil ay inyaa taragashteen ama gadaal marshada gadaasha way baqeen haddana faransiisku muxuu leeyahay aniga arrinkaa kuma talinayo haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadaas laga qoray telefishinka alcarabiya wuxuu leeyahay faransa waxay sheegtay faragelin military oo iiraan lagu sameeyo inaysan iyadu ahayn mid ay ku talinayso ma ogolinay leedahay khiyaarkeena ma ruuxan ha laga joogo gabadha wasiirka gaashaandhigga ka ayaa arrinkaa ka hadlaysay waxay tiri annagu waxaan waa ka digaynaa nimanka ayaa la isku weeraray waxa meesha ka dhici doona wax dhagaha la qabsaday maqli jirtay faraha la gashaday taasaa dhici doontay tiri haddaba faransiisku isagu waa sheegay maraykan iyo israa'iilna nuuxnuuxdooda way socotaa waa arkaynaa meeshaa wixii kasoo baxa wixii faahfaahina oo aad u xiiso badan barnaamijkaygii koowaad ayaan kusoo qaatay shiinaha iyo hubka halista uu geeyay halkaas dadka nagala socda ee aan daawan barnaamijka koobaad halkaasay kasoo daawan doonaan qadar xayeysiisa kadib waxaan galaynaa sheeko la yaab leh oo warbaahinta caalamku ay ka hadlayaan gabar meydkeeda laga helay magaalada istanbul dad lagu tuhumayo sheekada inay ka dambeeyeenna airportka istanbul in lagu qabtay haddaba sidoo aad joogtaan waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeenii labaad maanta oo axada barnaamijka qaybtan waxaynu kusoo qaadanaynaa warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa turkiga ayaa aada uga hadlaya gabar madaxa laga jaray labada lugood laga jaray oo meel qashinka ah qashinquba lagu tuuray saakii booliiskaa la wargeliyey markay arkeen way yaabeen baaritaanadii ugu horreeyay warsameyn kastoo waddankay u dhalatay iyo cidday tahay aan la sheegin haddana waxaa la leeyahay arrinkaa wuxuu u muuqdaa baaritaan xoog lahaa socda yaa ka dambay kara sheekadan yaa ku lagu leh maxaa laga waday maalmo ka hor ayaa wargeys turkiga kasoo baxa wuxuu qoraa la leeyahay kurdiyiintii looga adkaaday maaragtay suuriya inay ku hanjabeen acmaal waxshi aan ka geysanaynaa falal fool xun aan turkiga gudihiisa ka geysan doonaa ma qolo kala lama yaqaano weli baaritaankiyaa booliisku wadaan haddaba marka aan idintusoo wararkii ugu dambeeyey ee arrinkaa laga qoray telefishinka alcarabiya ayaa wuxuu sheegay haweenay meydkeeda oo madaxa ka go-an in laga helay istanbul taasoo carab fara badan ka dhalisay gudaha dalkaas haddaba dhanka kale booliiska ayaa waxaa la sheegay saacado kadib markii arrinkaa la ogaaday in airbortka istanbul ay ku qabteen 2 qof kuwaasoo argagaxsanaa doonayayna inay garoonka ka baxaan waxaana la sheegay in 2 qof ay u dhasheen dalka la yidhaahdo Uzbekistan waxaana ay isku dayayeen inay turkiga ka dhoofaan haddaba gacanta ayaa lagu dhigay baaritaan ayaana socda waxaa sidoo kale la xiray mid kale oo saddexaad ilaa hadda marka tafaasiil lagama hayo ma sheekadii kurdigu ku hanjabeen acmaal waxshigii oo qoorta la iska jirayay oo wax xun aan ka geysanaynaa maadaama ay suuriyaanka nagu soo hubeeyeen oo suuriya naga saareen turkiga ay ku hanjabeen kurdiyiin ma iyagaa ka dambeeya ma qoladan Uzbekistan taa la adeegsaday lama yaqaano marka arrinkaa wixii kasoo kordhaysana waa arki doonaa barnaamijkaygii labaad asxaabay maanta axada waa naga intaa waxaa naga xusuusaa barnaamijkii koobaad warar aada u xiiso badan baa ku jiray Chinaha oo hub la yaab la geeyey Iran haddaba qofkii aan daawan halkaa ayuu ka daawan karaa oo macnaha barnaamijkaygii koowaad ee saaka aan soo geliyay intaan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo